السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسو دوادا موضوعنا مانت هدي aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo sar like-na ku harqi موضوعنا si marka uu soo galaba aad ula socotay fadlan rukuma gambaleelka. قناة الجزيرة في قطر. حصاد اليوم. laanta af carabiga ah ee muuqbaahayaha carbeed ee Aljazeera ayaa maanta 23 jirsaday 2019 aan ku noolay. Janaalka Aljazeera waxaa laga leeyahay dalka Qatar waxaana la daafuray laanta af carabiga sanadku markuu ahaa 1996. Laanta af Ingiriisiga aanu hawada soo gashay 2006. muuqbaahayaha Aljazeera waxa wax ka dhigay dalka yar ee Qatar mid caan ah oo dunida oo dhan aad looga yaqaan. sababtoo ah channelka Aljazeera waxa uu ka mid noqday warbaahinta ugu saameynta badan uguna caansan dalalka Carbeed qarniga 21aad. Aljazeera waa socod barad marka la barbar dhigo warbaahinta galbeedka. hase yeeshee maalmo iyo maskax badan oo la geliyay waxa uu ka mid noqday warbaahinta saameyn badan caalamka oo dhan. warbaahinta waxay ka mid tahay aaladaha wax lagu gumaysto waqtigan casriga ah ee reer galbeedku sidaan. telefishinka Aljazeera ayaa jirsaday 23 sano tan iyo markii la unkay 1996. haddaba daawad waxyaabaha ay ku faanayaan Aljazeera wuxuu ka kooban yahay 5 TV oo kala ah Aljazeera Arabic, Aljazeera English, Aljazeera Documentary, Waasiya Aljazeera, Mubashir Toos iyo Aljazeera Blanks. waxay leedahay Aljazeera qayb la dhaho AJ Plus oo ah baraha bulshada oo macad lagu barto saaxadda macadka daraasad iyo macadka xuquuqda aadanaha. Aljazeera waxaa ka shaqeeya ku dhawaad 4,000 oo qof waxayna dunida ku kala leedahay 70 xarumood oo waaweyn oo meelo kala duwan oo adduunkani ku yaala. baraha bulshada waxaa Facebook ugu taxan 20 milyan oo qof. guud ahaan qaybaha kala duwan ee baraha bulshada ugu taxan 60 milyan oo qof. bishii September aan soo dhaafnay waxaa Aljazeera Arabic daawaday 106 milyan, Aljazeera English 345 milyan, Aljazeera Documentary ama Waasiya waxaa daawaday 53 milyan, Aljazeera Mubashira waxaa daawaday 53 milyan, Aljazeera Blanks waxaa iyadana daawatay 8 milyan. Aljazeera waxay ku guuleysatay 540 abaalmarinood sanadkan socda ee kaliya 28 abaalmarinood oo ay ku guuleysateen. Aljazeera waxay tabisay dhacdooyin waaweyn oo dunida ka dhacay sida weerarkii daaraha dhaadheera ee Mareykanka. markaad xasuusato daarihii dhaadheera xasuusataa baan jeclay Aljazeera ayaa baahin jirtay. iyo sidoo kale duulaankii Ciraaq iyo kacdoonkii guga Carabta ee 2011. goorma ayay warbaahinta Soomaalidu halkaas gaadhayaan? balse waxaan rajaynayaa in warbaahinta Soomaalidu leedahay ay noqoto warbaahin sida Aljazeera oo kale hana qaada, waayo casrigan aan ku noolahay hubka ugu culus ee la isku rido. markaan hub ka hadlano waxaad markiiba xasuusantaa hubkii nukleerka maaha taas, laakiin hubka ugu weyn ee dunida aan hadda ku noolahay la isku rido waa warbaahin. dalku ka warbaahin fiican yahay ayuu ka dhaqaale iyo ka horumar fiican, waayo warbaahintu waxay ka mid tahay waxyaabaha dalku hana qaado. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada mawduucan, balse waxaad sheegtaa Aljazeera TV waxyaabaha ka baxay ee aad adigaagan daawanaya daawada ka hesho commentiga hoose noogu reeb. haddii aad ka heshay fadlan mawduuceena like noogu dhufo ee Aljazeera TV daawadana sii gaadhsi. waadna mahadsantihiin saaxiibeel. fi amaanillah. saaxiibayaal waxaan idinku bishaaraynaynaa inaanu bartan idiin soo golin doono barnaamijyo taxana ah oo toddobaadkiiba 2 barnaamij ama 2 mawduuc oo macquula idiin soo gelin doono. fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada. waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah.